deegaanka la yiraahdo Puntland waa deegaan Soomaaliyeed hadda ka horna waa ka hadlay dad macna badan dawladda macna u leh taariikh fog oo maxaan ku raad dawladnimo leh yaa degan waxaan rabaa inaan sheego raalli kama ihin dadkaas in uu nidaamka ka dumo iyo inay isdilaan intaba raalli kama ihin laakiin ifafaalayaasha muuqda wadada aan soo marno sheegay mugaan barbar dhigno ifafaalayaal fiican ma aha madaxda Puntland waxaan leenahay dadka iyo rabitaankooda tixgeliya ha ka talaabsanina kama tilaabsan kartiin aad iyo aad ugu dhaganuglaada oo dhageysta meel dhaqan leh oo dhaqankeedu xoogan yahay oo siyaasiyiin maahir ah oo caam oo dalka laga yaqaano leh waaye siyaasiyiinta hala dhageysto odayaasha dhaqanka hala dhageysto ka bacdi dawladnimadu siday maamulka iyo dawladnimadu siday u adkaanayaan hala yeelo ka tala bixi maayaan waa huba kuna talin maayaan odayaasha dhaqanka deegaankaas joogay wax dawladda Puntland duminaayo ma ku talinayaan nimanka siyaasiyiinta ah ee deegaanka ka soo jeeda ee deegaanka madax ka noqday dalkana madax ka noqday Soomaali oo dhan madax ka noqdayna niman garan waaya ma aha wax dadka dan u ah iyaguna laga rajayn maayo inay tala xun ay ka soo baxdo ama afkooda ay ka yeerto laakiin maamulka waxaan leenahay u dhaganuglaada dadka dhageysta wax garadka indheer garadka dhageysta dad fiican mas'uuliyadda yaqaano xikmad dawladnimo leh ayaa deegaanka ku nool ee hala dhageystaan leenahay hadday yihiin odayaal dhaqan iyo hadday yihiin siyaasiyiin intaba odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta iyo shacabka reer Puntland waxaan leeyahay 24 sano waqti dhow ma ah maanta meesha aad joogtaan 24 sano ayaad ku soo gaarteen laakiin waxa suurtagal ah 24 maalmood ka yar inaad ku dumisaan wixii 24 ka sano la soo dhisay oo maalin walba meel marayay dimuqraadiyeynta iyo talada wanaagsan way fiican tahay laakiin waa in la isla fahmaa oo la isla qaataa Puntland markii ugu horeysay oo doorashada qof iyo codad laga abaabulo maanta ma aha horaa looga soo abaabulay oo la isugu dayay mid aanay dadka fahamsanayn ama raalli ka ahayn in la mariyo waana la mari waayay hadda ka hor haddana ma marayso dadka haddaanay raalli ka ahayn dadka haddaanay raalli ka ahayn ma marayso yaan dadka reer Puntland dhibaato gaarin magac iyo sharaf iyo haybad ay leeyihiin yaanay ka dhimanin oo haybadu ka dhumin oo dad aan waxba garan la isdilayo aanay u ekaanin siyaasiyiintan leeh ka jooga ayeelinina maamulkan leeh talada haya maanta ka jooga ayeelinina odayaasha dhaqanka siyaasiyiintan leeh waxa maslaxada ummadda ah ka taliya weligiin baad ka soo tali jirteen